sanadkan sii dhammaanaya 2021 waxyaabaha aadka loogu xusuusto waxaa ka mid ah go'aankii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ka soo saartay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddo dheer soo jiitamaysay. haddaba barnaamijkan gaarka ah ayaanu ku eegaynaa sida uu ku soo bilowday murankan badda, marxaladihii uu soo maray, saamaynta uu ku yeeshay xiriirka labada dal, sida uu u dhacay xukunka ICJ iyo falcelinta ka dhalatay. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay in muddo isku haysteen dhul cabirkiisu gaarayo 100,000 kiiloomitir oo isku wareeg ah oo loo malaynayo inuu dhex eegaago shidaal. haddaba goormee ayuu soo bilowday khilaafkan? markii Kenya ay soo saartay 2005 ay unada u dirtay ay leedahay waxaan leeyahay badayda xuduudadeena waa sidaas anigu markaasan maqalnay. waa Admiral Faarax Axmed Cumar oo loo yaqaano Faarax Qare oo madax ka ah hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, marna soo ahaan jiray taliyaha ciidamada badda Soomaaliya oo BBC-da uga warramay goortii uu soo shaacbaxay khilaafka badda. dad badan ayaase laga yaabaa inay isweydiinayaan sababta keentay in sanadkii 2005 uu soo shaacbaxo khilaafkan badda. Faarax Qare ayaa mar kale ka warramaya sababta xilligaasi ku soo beegtay. horta xuduudan Kenya iyo Soomaaliya ma wada dhiganade. xuduudan Talyaani iyo Ingiriis wada dhigtay oo labada dhinac ka isticmaalsanay 25 Juulaay 1924 ayay ku kala saxiixdeen London. sidaas Ingiriisku wuxuu Talyaaniga ku soo wareejiyay dhulka hadda loo yaqaan Jubaland. xuduudan halkaas la dhigay. xuduuda marka waa la calaamay injineer calaamay 29 calaamo oo dhagax shub ayaa xuduudda lagu calaamaday. kan 29aad wuxuu taagan yahay xeebta badda Raasiyaan Booli koonfurkiisu taagan yahay. halkaas markii la tegay xuduud badeed ma loo baahno markaan dhulka waa la xadeystay. xuduudii badda loo baahan yahay. jasiirado yar yar oo dhagaxa meesha ku yaala oo magaca xunlo laba shaanka la yiraahdo. waxay sharciga ku qoreen oo koobigiisu hayaa xuduudda baddu waa xariiqin halka xuduudda dhulka ay ka soo gasho ka baxaysa oo taagan oo toosan oo badda u jeeda oo jasiiradan laba shaanka oo shanta ah dhinaca galbeed ka maraysa. intaasi kadib waxaa xigtay 7 Abriil sanadkii 2009 oo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed iyo dowladda Kenya ay kala saxiixdeen heshiis isfahan ah oo la xiriira xadka badda ee labada dhinac. heshiiskaas kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse waxa uu dhigayay hanaankii loo mari lahaa in lagu xalliyo khilaafka xadka badda ee labada dal u dhexeeyey. 1 Agosto isla sanadkaas 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqlabiyad ballaaran ugu codeeyay in la laalo heshiiska is-afgaradka ahaa ee dhex maray Soomaaliya iyo Kenya. xildhibaanada soo haadatay oo dooda u fadhiday waxay ahaayeen 347 xildhibaan. 9 xildhibaan waxay soo jeediyeen in dib loo dhigo. 9 xildhibaan waxay yiraahdeen guddi ha loo saaro. 4 xildhibaan waxay yiraahdeen dib ha loo dhigo. 334 xildhibaan waa diideen heshiiskaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. madaxweynihii xilligaas Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay heshiiskaasi ayaa yiri markii ugu horeysay oo Kenya aan tagay oo madaxweyne Kibaki joogay aan la kulanno guddi aan bixinay. dawladda Kenya guddiga noo soo bixin. anaga guddigeena waxaa madax u ah Shariif Xasan. waxaa laga doodayay ajandaha laga hadlayo in meel la dhigo. marka anaga 10 ajandaan wadanay. dawladda Kenya waxay keeneen waxaan ku dareynaa hal ajanda oo badda ah. war waxaan dhahnaa anaga bad kama hadli karnaa wax kale aan ka hadalno ma jirto. ala kulli xaal waxaan ku qancinay dawladda Kenya bad kama hadlayno. waa ka soo tagnay muddo kadib arinta dadaalka UN-ka iyo dawladda Norway ayaa bilaawday oo ku aadanay arinta continental shelves. xukuumadda waxaa lagu qanciyay arintaas inay laga maarmaanta anaga iyo Kenya aan wax iska dhahno. Ra'iisul Umar Abdirashiid isaga xukuumadda hogaaminayay go'aanka asaga iyo xukuumaddiisa qaateen sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan laakiin aan ma leela socodsiinin. subaxda la saxiixay Cabdiraxmaan ay soo waca waa kana wuxuu madaxweynuhu arintaas jirta heshiisa la rabaa in la saxiixo maxay kula tahay. waa fikir madaxan qabsado maxay sheegaysaa. waxaan idhi waa saxiixaysaa. Ra'iisul warkiisiyeen Cabdiraxmaan waa baqay. Cabdiraxmaan waxa soo xasuustaa amaleena
عمر أويرا وحار عمره محايق قرص أرنتان حودانية وحن مودينا أكتر سيكو أوغانا مركي بقايلة عرك اسكو درسنت بدي يقتانا وحين قتاني عمر إيه عبد الرحمن كشكي أنا عبد الرحمن كان إيه عمر ولي الناس كم ورسن إلا أركبركو أركنك العقل وجهزي intaa kadib waxaa degtay xiisadda arrintaas hase yeeshee waxa ay mar kale soo cusboonaatay sanadkii 2014 markaasoo Soomaaliya si rasmi ah ay galdacwadeedkeeda ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ 13 Julaay sanadkii 2015 Soomaaliya ayaa si rasmi ah kiiska badda waxa ay u geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ xeer ilaaliyihii Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo BBC-da la hadlayay xilligaasi ayaa sheegay in arrintan ay go'aankeeda gaari karto oo kaliya maxkamadaas halka xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ee xilligaasi Gideon Muigai oo isagana BBC-da u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskan ay geyso maxkamadaasi waxaa xigtay 18 Diseembar ee sanadkii 2017 markaasoo Kenya ay xareysay jawaabta ay ka bixinaysay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda ICJ xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ee xilligaas waxa uu ku dooday in maxkamaddu aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto kiiskan wuxuuna codsaday in arrintan ay labada dal ku xalliyaan wadahadal xeer ilaaliyihii Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda ay tahay goobta keliya ee lagu kala bixi karo waxaa xigtay 2 Febraayo sanadkii 2018 markaasoo maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ay go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya 7 bishii Febraayo sanadkii 2019 Soomaaliya ayaa waxa ay London ku qabatay shir iyadoo ku sheegtay inuu suuqgeyn u ahaa shidaalka Soomaaliya shirkan ay soo qaban qaabisay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa natiijada sahanka waxaa soo bandhigtay shirkadda Spectrum bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay dib u dhigtay dhageysiga kiiska badda oo xilligaasi la qorsheeyay inuu dhaco 4 Novembar ee isla sanadkaas waxa ay se ka dhigtay ilaa bisha Juun ee sanadka 2022 waxa ay arrintaasi u sababeeyeen inay eegayaan xaaladda qeyrul caadiga ah ee uu sababay xanuunka coronavirus 14 Maaj ee sanadkan sii dhammaanaya 2021 dowladda Kenya waxa ay isaga baxday dhageysiga kiiska muranka badda ee kala dhexeeyay Soomaaliya 15 Maaj ee isla sanadkan waxaa si rasmi ah u bilowday dhageysiga kiiska oo ay qaadaysay ICJ waxaa ka qayb galay oo doodooda gudbiyay qareennada Soomaaliya u doodaya oo keliya maadaama Kenya ay isaga baxdayna ama aysan gudbinin doodeeda maxkamadda ayaa sheegtay in go'aankeeda ay soo saareyso 12 Oktoobar ee sanadkan 2021 haddaba inta aynan u gudagelin go'aanka maxkamadda aan eegno sida khilaafkan uu u saameeyey xiriirka labada dal bishii Sebteembar ee sanadkii 2016 dowladda Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah u joojisay dhammaanba duulimaadyada qaadka ee tegi jira Soomaaliya waa suuqa ugu weyn ee loo dhoofiyay qaadka Kenya iyadoo duulimaadyo badan oo sida qaad ay maalin walba tegi jireen Muqdisho tallaabadan waxa ay dharbaaxa ku noqotay ganacsiga qaadka ee Kenya sanadihii xigay waxaa sii xumaanayay xiriirka labada dal haba ugu weynaatay tii ay isugu dhaceen arrinta maamul goboleedka Jubbaland oo xad la leh Kenya sanadkii 2019 dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay taageerto maamulka Jubbaland iyadoo la og yahay inuu khilaaf siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamayay uu ka dhaxeeyo madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedkaas oo ka dhashay doorashadii dib loogu doortay Axmed Maxamed Islaam dowladda Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruurtay doorashadaas waxaana sheegtay inaysan aqoonsanayn Axmed Madoobe halka Kenyana ay sii waday aqoonsashada Axmed Madoobe arrintaas ayaana sii xumaysay xiriirkii labada dal ee markii horeba liitay waxaa xigtay bishii Diseembar ee sanadkii 2020 markaasoo Kenya ay roog cas ku soo dhaweysay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi Soomaaliya ayaa si arrintaas uga jawaabtay
dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duulaysa madax bannaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaynuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga Kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa caawa oo bishu tahay 15 December 2020 waa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo 15 December sanadkii 2020 la hadlayay warbaahinta sababta ayuuna wasiirka ku sheegay dowladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay dowladda Kenya ku haysay madax bannaanida dalkeena dowladda federaalka Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa madax bannaanida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka shuruucda iyo xeerarka caalamiga wax gorgortanana haba yaraatee dowladdu kama gelayso xorriyadda madax bannaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya waxa kale oo ay Kenya ku eedeysay inay Somaliland u adeegsanayso Soomaaliya hase yeeshee madaxweyne Biixi ayaa maruu BBC-da la hadlayay waxa uu beeniyay arrintaasi malaha haddii noo qabato waxaa tiindad loo adeegsanaya in cid kale loo karbaasho malaha ereyga la isugu quuri karo ta kale Soomaaliland anagu waxaan isu qabnaa oonu nahayna taariikhiyan iyo imikaba Soomaali kuwa ugu qabweyn ee Soomaali meel ay joogto in wax taraan mooy aan wax yareyn iyo bini'aadmiga kaleba madaxweyne Biixi oo BBC-da uga warramay ujeedada safarkiisa Kenya ayaa sheegay inuu u yimid si ay Kenya uga wada hadlaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimo dhowr ah Soomaaliya ayaa u cabatay urur goboleedka IGAD oo ay xubin ka tahay qudhiisana xilliga ay qoorta ugu jirtay xiisadda ka taagan Itoobiya shirkii IGAD ee xilligaas ayaa waxa uu urur goboleed ku magacaabay guddi xaqiiqa raadin ah oo uu horkacayo dalka Djibouti kaasoo hoos u eega eedeymaha ay Soomaaliya u jeedisay Kenya guddigan ayaa baaritaan kadib waxa uu soo saaray natiijada baaritaankaas oo uu ku sheegay inaanan cadeymo ku filan loo haynin sheegashooyinka Soomaaliya ayaa diiday natiijada baaritaanka iyadoo sheegtay in Kenya ay faragelisay Djibouti islamarkaana uusan baaritaankaasi cadaalad ahayn arrintaa waxa ay horseeday iskoorimaad diblomaasiyadeed oo cusub oo gobolka ka qarxay kaasoo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Djibouti dowladda Kenya ayaa dhankeeda bishii Maarso ee sanadkan waxa ay joojisay duulimaadyada labada dal u kala goosha dowladda Soomaaliya ayaana arrintaasi ku tilmaantay mid la yaab leh hase yeeshee bishii Maarso ee sanadkan ay Soomaaliya shaacisay inay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Kenya kadib dhexdhexaadin uu sameeyay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al Thani dadaal uu ka geystay heshiisyada Soomaaliya iyo Kenya sida uu xaqiijiyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay dib u soo celinta xiriirka Kenya ayaana wax saameyn ah ku yeelan kiiska badda oo halkiisii ka sii socday haatana waxaa la soo gaaray xilligii lagu madlanaa dhageysiga xukunka maxkamadda ICJ oo muddo dheer la sugayay waa 12 Oktoobar ee sanadkan 2021 waxa ay xilliga geeska Afrika ka ahayd galab Talaado ah waxaana magaalada Hague ee dalka Holland loogu madlanaa xukunka koox garyaqaano ah oo ka koobnaa 15 xubnood oo ay hogaaminayso Jawaan Donkuu oo ah madaxweynaha maxkamadda ICJ ayaa si rasmi ah waxa ay u gudbiyeen xukunka maxkamadda dunida ugu sarreysa saacadda geeska Afrikada bari markii ay ahayd 4 galabnimo dhanka Soomaaliya waxaa magaalada Hague ku sugnaa wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo weliba xeer ilaaliyaha guud Suleymaan Maxamed Maxamuud maxkamadda ayaa xukmisay in Soomaaliya iyo Kenya ay qaybsadaan dhulkaasi iyadoo qaybta ugu badan la siiyay Soomaaliya marka Soomaaliya 10 qaybood oo kale ay heshay Kenya waxa ay heshay 4 oo kaliya maxkamadda ayaa ka hortimid dooda Kenya ee ahayd inuu jiro heshiisyo ay horey ula gashay Soomaaliya sidoo kale maxkamadda waxa ay gaashaanka u daruurtay sheegashada Soomaaliya ee ah in Kenya ay meel uga dhacday shuruucda caalamiga ah sabab la xiriira inay howlo ka wada aaga la isku haysto
dhanka Kenya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa gaashaanka u daruuray xukunka maxkamadda ICJ. Uhuru ayaa ka digay in go'aanka maxkamadda ICJ ay inta badan badii lagu muransanaa ku siisay Soomaaliya uu waxyeelayn doono xiriirkii ka dhaxeeyay labada dal. balse madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankaasi soo dhaweeyay. waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa ta'aala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo miro dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed. wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog, aqoon durugsan, dhiiranaan, wadaniyad, ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka. waxaa guuleystay xaqa, waxaa guuleystay sareynta sharciga. guushan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen. waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sareynta sharciga. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xukunkaasi kadib waxa uu haatan u muuqdaa mid xasiloon. qubarada falanqeeya arrimaha geeska ayaana qaba in laga yaabo in mustaqbalka ay kulan isugu yimaadaan Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ay kaga arrinsanayaan arrintan.